sadarkaysa shirka waxaa ka soo qayb galay ra'iisul wasaaraha madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed wasiiro dowladda federaalka ka socday xildhibaano iyo madax ka kala socotay safaaradaha iyo ururada caalamiga ah ee degan Soomaaliya oo hogaaminaya wakiilka xogayaha qaramada midoobay waxyaalaha ka wada hadlayna waxay ahayd sida ka muuqata waxa soo socda shirkii la isugu imaanayay Soomaaliya beesha caalamka ku shirayeen xamar bisha dambe hadii la idmo bilowgeeda marka wax la isugu yimi bal in kala warqaato diyaar garowga shirka meesha wax marayaan waxa loo baahan yahay la qabto shirka ka hor iyo xog waraysi guud iyo sidii la yeeli lahaa arrimahaas laga wada hadlayay meesha marayso arrimaha security-ga arrimaha dhaqaalaha arrimaha daan cafiska arrimo badan oo naga wada dhaxayaan ka shaqeynay bariyahan ayaan ka wada hadalay si fiican baa noogu soo dhamaaday xaaladda Koonfur Galbeed warbixin fiican ka bixin madaxweynuhu iyo ra'iisul wasaaraha iyo arrimahan soo aragnay dhamaanteed arrimaha loo baahan yahay la qabto iyo qaybta horumarinta iyo gargaarka marka runtii waxa shir aad u fiican xog wareystay safaarada badan hadleen wasiirada hadleen wax fiican ka soo baxeen marka insha Allah waxaan rajaynaynaa shirka weyn soo socda iyo shirarka soo socda Soomaaliya oo kamid ah kan qaramada midoobay madaxweynuhu aadayo in wax fiican ka soo baxaan dalad madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicaziz waxa uu soo bandhigay waxyaalaha u baahan yahay gobolka laga qabto codsin uu soo jeediyay waxa la qabto deegaanka oo u baahan runtii shaqooyin badan oo dhinaca horumarinta iyo dhinaca gargaarka marka warbixintii waa la dhageystay annagana waa taageernay insha Allah waxaan rajaynaynaa in wax badan la qaban doono dalad